وسلامتين أصحابته kusoo dhawaada barnaamijkeeni 1 by 1 oo aanu kusoo qaadan doono wararka iyo warbixinihii ugu dambeeyay waxaan wadaagi doonaa heshiisyadii la sameeyay saacadihii ugu dambeeyay kuwa la filayo inay dhacaan iyo xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda aynu ku bilownay xaaladii Conte oo maalmihii u dambeeyay u dhaxaysay kooxaha Barcelona iyo Chelsea ayaa sida la sheegay dalabkii ugu dambeeyay ee ay kooxda Chelsea ka gudbisay ciyaartoyga ayaa ka yar 50 milyan dalabkan oo kii hore ka duwan oo markan heshiiska kuma jiraan ciyaartoyda Dest iyo Memphis Depay halka uu dalabkii Chelsea ee ahaa 50 milyan ee pound uu wali ku jiro gacanta Sevilla sida ay sheegeen ila ka soo baxay mas'uuliyiinta kooxduna waxay ilaa hadda kooxda Sevilla wada hadal kula jiraan kooxda Chelsea oo kaliya dhinaca kale madaxweynaha kooxda Barcelona ee Juan Laporta oo ka hadlaya xaaladda Frenkie de Jong ayaa yiri de Jong ilaa hadda waxaa jira dhowr kooxood oo dalab ka soo gudbiyay laakiin ilaa hadda ma ogolaan doono waayo waxaan rabaa inaan la hadlo ciyaartoyga oo aan weydiiyo waxa uu rabo halka la filayo inay kooxda West Ham shaaciso saacadaha soo socda la soo wareegida weeraryahanka kooxda Sao Paulo ee Sakamaka waxaana ciyaartoygu bari u safri doonaa magaalada London si uu u dhameystiro ama uu u maro tijaabada caafimaad sida ay qoreen warbaahinta Ingiriiskuna kooxda PSG ayaa diyaar u ah inay wada hadal ka furto ciyaartoygeeda Kimpembe haddii uu gaaro 70 milyan dalabka ay ka soo gudbiyaan kooxaha kale ee raba ciyaartoyga iyadoo ay kooxda Manchester United ku dabaqsan tahay xaaladda Ronaldo ayaa waxaa la sheegayaa inay kooxda Manchester United ka dalabatay Ronaldo inuu cadeeyo xilliga uu ku soo laabanayo tababarka oo Ronaldo ayaan wali sidoo xilli ciyaareedku u bilaamin ama isku diyaarinta xilli ciyaareedku sida u bilaameen wali kooxda Manchester United tababarkeeda iyo kulamadii saaxiibtinimada ay ciyaareen midna kama soo qayb qaadan sida darteed kooxda ayaa fariin rasmi ah u dirtay oo Ronaldo kaga dalbanaysa inuu soo cadeeyo waqtiga rasmiga ah ee uu ku soo laaban doono tababarka kooxda sidoo kale sida ay qoreen warbaahinta Madrid ciyaartoyga Asensio ayaa rabay inuu sii joogo kooxda Real Madrid balse dhib ka jira ayaa ah inaanay wali kooxda Real Madrid wax heshiis kordhin ah u soo bandhigin ciyaartoyga waqti xaadirkan marka inuu sii joogo waxa ay ka dhigan tahay inuu Asensio xilli ciyaareedkan heshiiskiisa dhameysto oo heshiiskiisu wuxuu dhacay ilaa 2023 kadibna uu 2023 markii gaadho inuu ku baxo lacag la'aan haddaba Asensio isagoo og inuu yahay ciyaartoyga saddexaad ee ka ciyaari kara ama ciyaartoyga saddexaad ee uu dooran karo Ancelotti ee uu ka ciyaarsiin karo weerarka midig oo ay ka horeeyaan Rodrigo iyo Valverde ayaa haddana waxa uu rabaa inuu sii joogo kooxda Real Madrid dhinaca kale wararka soo baxaya kooxda Barcelona ayaa sheegaya in kooxda Barcelona diyaar u tahay inay dhageysato dalabaadka ka imaanaya kooxaha raba Memphis Depay haddii xataa ay noqoto 20 milyan ama 20 milyan inay tahay qiimo ku haboon halka ay kooxda West Hamna maanta wada hadallo cusub la furtay kooxda Frankfurt si ay uga soo wareegaan ciyaartoyga uga ciyaara daafaca bidix ee Kostic sidoo kale wali waxaa socda wada hadallada u dhaxeeya kooxda PSG iyo Roma oo ay kooxda Roma rabto inay la wareegto ciyaartoyga Ronaldo ayaa waxa hadhay qodobo yar oo qodobada hadii la isku afkarto waxa si rasmi ah loo shaacin doona heshiiskaas oo wax yar ayaa dhiman qodobada kale barnaamijkan waxaa ka mid ah tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa yiri ma rabo inaan wax ka bedelo ciyaartoyda ka ciyaarta daafaca dhexe ee kooxda Real Madrid oo wuxuu ka wadaa ma rabo inaan wax ka bedelo labadii ciyaartoy ee xilli ciyaareedkii dhamaaday ka ciyaaray daafaca dhexe inaan tusaale ahaan oo kale Rudiger ku bedelo mid ahaantood ama si kale aan u bedelo ma rabo oo wuxuu sheegay Eder Militao iyo David Alaba oo xilli ciyaareedka hore ka ciyaaray daafaca dhexe kooxda Real Madrid ayuu yiri waxa ay soo bandhigeen xilli ciyaareed fiican mana rabo inaan bedelo markana ciyaartoyga hore ee kooxda Juventus haatan ah ciyaartoyga cusub ee kooxda Bayern ee Matthias de Ligt ayaa la weydiiyay Messi mise Ronaldo labadan ciyaartoy labadan legend kee ayaa dooran lahayd haddaba de Ligt ayaa ku jawaabay waa su'aal adag labadooduba waa laba ciyaartoy oo wuxuu waday way muuqataa waxa ay sameeyeen Ronaldo iyo Messi oo waxa uu yiri haddana waa kuwii ugu fiicnaa jiilkoodii ama intii ayagu kubadda ciyaarayeen dadkii ciyaaray iyo ciyaartoydii ay ka soo garab ciyaareen iyo kuwii ka hor yimaadeen iyo kuwii ay isku xil ciyaareen waa kuwii ugu fiicnaa anigu waxa aan ka garab ciyaaray buu Ronaldo sidaa darteed aniga ahaan waxaan oranayaa ciyaartoyga aan ka garab ciyaaray ee Cristiano Ronaldo dhinaca kale kooxda Inter Milan ayaa la filayaa inay awood saarto inay daafaceeda Skriniar wada hadal la furto si uu heshiis kordhin ugu sameeyo kooxda oo kadib markii ay kooxda diyaar u ahayd inay iibiso ciyaartoygan Skriniar oo markii hore la xiriirinayay kooxda PSG ayaa kooxda PSG waxa ay ka maarantay ama ay joojisay wada hadallada ay ula jirtay kooxda Inter Milan dhinaca kale kooxda Inter Milan oo islahayd markay Skriniar iibiso aad ku bedelatid ciyaartoyga Bremer ayaa ciyaartoyga Bremer laftiisu waxa uu ku biiray kooxda Juventus ayuu ku biiray
isla wararka ka soo baxay wadanka Talyaaniga ayaa sheegaya in ciyaartoyga cusub ee kooxda Juventus la soo wareegtay ee Paul Pogba uu tababarkii kooxda maanta dhaawac kaga baxay. maahan dhaawac daran, balse waxa uu u baahnaan doonaa ciyaartoygu maalin ama 2 maalmood oo nasasho ah, waxaana saacadaha soo socda la marin doonaa baadhitaano rasmi ah. dhinaca kale tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp oo ka hadlaya kooxda Manchester City ayaa waxa uu yiri waxay noqon doontaa dagaal weyn. kani waa horyaalka Ingiriiska ee Premier League, waxayna u eg tahay inay ugu dambeyntii kooxda Manchester City ama dhamaadka xilli ciyaareedka inay kooxda Manchester City noqon doonto kooxda ku guuleysanaysa horyaalka Ingiriiska ee Premier League, balse annaga hadafkeega haddaanu nahay kooxda Liverpool ayaa ah inaanu soo bandhigno xilli ciyaareed aad u fiican. sidoo kale tababaraha kooxda Juventus ayaa la sheegay inuu rabo ciyaartoyga kooxda PSG ee Paredes, waxaana weli socda wadahadalada labada dhinac oo waxaa la filayaa inay wax ka soo bixi doonaan saacadaha soo socda. isla tababaraha kooxda Juventus ayaa sheegay inay weli kooxda Inter tahay kooxda la saadaalinayo inay ku guuleysan karto horyaalka Talyaaniga xilli ciyaareedka cusub. waxa ay sameeyeen AC Milan xilli ciyaareedkii hore waxa uu ahaa wax cajiib ah oo ay adag tahay in mar labaad la sameeyo ama lagu celiyo, ayuu yiri. sidoo kale waxa uu yiri xilli ciyaareedka cusub ama xilli ciyaareedka soo socda kooxda AC Milan waxa uu noqon doonaa tijaabo, maadaama ay sameeyeen xilli ciyaareedkii hore wax ay adag tahay in lagu soo celiyo. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar, subscribe na dheh channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe.